wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa xilli uu la hadlayay cutubyo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka sheegay in dalka ay isku haystaan kaliya laba xisbi oo kala ah xisbiga JSB iyo xisbiga Al-Shabaab. labada xisbi oo isku haysta dalkan waa xisbiga Al-Shabaab iyo xisbiga JSB. Hawaariista iyo JSB baa dalka isku haysta. Hadalka wasiirka oo si weyn loogu faafiyay baraha bulshada iyada oo dad badan ay u fasirteen in dowladda federaalka ay u aragto cid kasta oo ka soo horjeeda xisbiga JSB inay la mid tahay Al-Shabaab isla markaana aanay aqoonsanayn mucaaradka siyaasadeed iyo xisbiyada kale ee dalka ka jira. Hadalka wasiirka ayaa ku soo aadaya iyadoo dowladda federaalka ay uu hogaamiyo madaxweynaha 4 sano loo dhaariyay ay ka dhamaatay Xasan Sheekh Maxamuud iyo mucaaradka ay isku khilaafsan yihiin nooca doorashada dastuurka dalka iyo mudxalaadka sharciga ah ee hay'adaha dastuuriga. mucaaradka ayaa hore madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ugu eedeeyay in taladii la wada lahaa uu ku kaliyeystay. Hadalka wasiir Axmed Macalin Fiqi ayaana noqday mid iftiimiyay sida ay dowladda hadda joogta uga go'an tahay inay ula dagaasho sida Al-Shabaab oo kale cid kasta oo ka aragti duban. Axmed Macalin Fiqi ayaa inta badan caan ku ah in uu weerar afka ku qaado siyaasiyiinta mucaaradka oo ay ku jiraan madaxweynayaal iyo ra'iisul wasaareyaal hore, taasi oo dad badan ku khasabtay inay isweydiiyaan in uu Axmed Macalin Fiqi yahay wasiirka gaashaandhigga ama afayeenka xisbiga madaxweynaha ee JSB. caqabad kasta waxay leedahay xal. Marwa Fertility Center waa xalka caafimaad ee ugu fiican xagga taranka. Waxa ay ku keentay adeegyo casri ah oo ka caawinaya inaad gaarto riyadaada qoys. Baaritaan iyo daaweyn heer sare ah ayaa ku diyaar ah. Wixii faahfaahina nambarada shaashada kaga muuqda.